Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada muuqaalkeena. Mowduuceena maanta wuxuu ku saabsan yahay fikradaha guusha lagu gaaro si aad u xaqiijiso guulahaaga. Haddii weligaa waqti ugu filan ma haysto, ogow dadka horumarka gaaray dhammaantood waxay haystaan 24 saac maalintii. Guushu waxay leedahay macaan u qasaa keliya. Waxaad dhadhamin kartaa markaad soo dhadhamiso macaanka fashilka. Guushu ma ahan dhammaadka nolosha, fashilkana ma ahan dilaaga nolosha. Geesinimadu waa inaad joogtayso waxaad rabto. Wax guul ah ma xaqiijin kartid ilaa aad jeclaanayso waxaad doonayso. Saad u noqoto qof guuleysta, waxaa kugu waajibaa inaad jeclaato guusha in ka badan intaad ka baqayso fashilka. Guushu waa caado, mar walbana waxay u timaadaa kuwa ku mashquulsan iyada si ay u xaqiijin lahaayeen guulahooda. Xitaa hadduu wejigaaga dhul ku dhaco, ha ka caajisin inaad horay u soconayso. Guushu waa joogtayn. Ilbiriqsiga keliya ee aad guuleysanayso wuxuu ku hilmaamsiinayaa dhibkii iyo rafaadka aad soo martay. Marna ma khasaaraysid intaad ku jirto isku day. Dariiqa guusha iyo horumarka ma ahan mid adag, mana ahan mid fudud. Haddaan garanno sidaan u fashilano, waxaan ogaanaynaa sidaan u guuleysano. Guushu waa isku dardarka dadaalo yaryar aad qabato kuna celceliso maalin kasta. Ogow si kasta oo dadaalkaagu u yaryahay, marna Ilaahay dadaalkaaga joojin maayo. Haddii aad rabtay inaad guuleysato oo guulo badan xaqiijiso, kuwa mustaqbalka soo socda iyo kuwa hadda taagan, waxaa kaa xiga oo keliya go'aan. Go'aanka laftigiisa oo aad gaaraysid. Ka fikir waxa mustaqbalka dhici doona. Isticmaal 6 fikradood oo aad ku xaqiijin karto guulahaaga. 1. Fuli fikradahaaga guusha adigoo ka bilaabaya meel macquul ah oo aad hadhow ka soo kabsan karto. Sidoo kale markaad wax yar ku bilowdo, waxaa kale ogaanaysaa in fikradaada soconayso iyo in kale. 2. Diiwaan gasho ahdaaftaada. Ahdaafta aad hiigsanayso waa in ay ku diiwaan gashan yihiin si aad u ogaato meesha aad marayso iyo inta kaaga dhiman inaad gaarto ahdaaftaada. 3. Xoogga saar ahdaaftaada. Hadafka aad leedahay wuxuu u baahan yahay daryeel iyo ka warqabid, iyo in aad mar walba ka fikirto siduu hadafkaaga ku xaqiiqoobi lahaa. 4. Daraasay khaladaadkaaga iyo saxnaanshahaaga. Waa inaad daraasaysaa khaladaadkaaga iyo saxnaanshahaaga, mid fikir ah iyo mid ficilba ah, si aad iskaga soo saxdo oo dib aysan kugu soo noqon wixii khaladaad ahaa oo aad gashay. Siina joogtayso wixii saxsanaa oo aad sameynaysay. 5. Dalbo saacidaad. Naftaada u ogolow inay hesho saacidaad aad ka helayso dadka kuu dhow si aad uga hesho khibrad iyo dhiirigelin, kuwaasoo horey kuu sii wadi kara. 6. Noqo qof isku kalsoon oo naftiisa ku kalsoon, ogna haddii aad dadaasho inaad gaarayso hadafkaaga ama guushaada. Isku day gaari doontaayo guulahaaga. Muuqaalkeen intaas ayuu ku egyahay. Muuqaalkiisa kale inta ku kulmi doono sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.